daawadayaal war goordhaweydna soo gaadhayna waxa uu sheegayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka dhacay qarax laxaadle kaasoo geystay khasaaro. faahfaahinta ka soo baxaysa qaraxaasi ayaa la sheegayaa in uu geystay dhaawac gaadhaya 14 ruux oo ay 6 ka mid ah yihiin caruur sida ay xaqiijiyeen dhakhaatiirta caafimaadka ee magaalada Muqdisho. qaraxa ayaana waxa uu ka dhacay degmada Hawlwadaag oo ka tirsan gobolka Banaadir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxa aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah. gaari lagu sheegay inuu ahaa Brada ayaa halkan rabay inuu markaa si xoog ah ku soo jiiro oo xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaariga istaajiyaan. markaana gaariga wuu isqarxiyay. waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyay 3 askari oo kamid ahaa kuwii iyagu isku dayay inay istaajiyaan gaarigaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa asaguna ku dhaawacmay, dhaawaciisa fudud yahay. meeshan waxaa ku yaala dugsi quraan. nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. ilaahay ayaa ka badbaadiyay, ilaahay ayaana lama haddaasi inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. baaritaan ayaa socda, ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac haday jiraan in kale. meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay. meelahan oo dhan way burbureen. waxaa macquul ah xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen. aad ay u mahadsantihiin. ma jirto ilaa haatan cid sheegatay qaraxaasi in ay ka dambeeyeen. wixii warar soo kordhana waxaad ku daawan doontaan wararkayga dambe